ninka haddii meher lagu leeyahay xajka ma aadi karaa? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. ninka meherka lagu leeyahay meherku waa xaq ay gabadhu leedahay oo adduunan bixinin isaga dayn ku ah. marka cumuumka wuxuu gelayaa xaj ma aadi karaa qof deyma lagu leeyahay. masalada way masalada culimadu ay ka hadlaan raxmatullaahi calayhim. cumuumka masalada ay ka hadlaan buu hoos gelayaa oo ka mid noqonaya. dayntu waa laba qaybood. marka koobaad dayn waqtigeedii la gaaray iyo dayn aan waqtigeedii la gaarin. haddii dayn muddo leh oon madasheedii la gaarin ay tahay, qofku xajna waa aadi karaa waana safri karaa, waayo xilligii bixinteedu ay waajibka ku ahayd weli ma gaadhin. xilligaasun baana laga dalban karaa oo loo qabsan karaa. waa inay bannaan tahay waa waxaan ka hadlayna, maxaa fiican maaha. haddii daynta waqtigeedii la gaadhay, iyadana qofka xaaladiisu laba mid bay noqotaa: inuu xajkana aadi karo, dadkana xaqoodii siin karo. haddii uu labadaa isku awoodo, way u bannaan tahay inuu aado, dadkana xaqoodii siiyo. haddii uuna labadaba isku awoodin oo aanu kari karin, xaq bini aadamna ku tacalluqay oo qoortiisa saaran yahay, wuxuu aadi karaa dadkii deynta ku lahaa hadday idnaan ama ay u fasaxaan oo xaggooda ogolaansho iyo idan uu ka helo. haddaanu idan ka helin, dee xaqoodu isaga dimadiisa iyo qoortiisa ay ku leeyihiin, inuu kala fogaado meel fog kala aado lama ogola. saas darteed qofku hadduu deyntii waqtigeedii joogo, wax gudana aanu haynin, dadkiina aanu idan ka haysanin, saddexda hadday israacaan, safarta looma ogolo wixii aan daruuro ahayn. wallahu aclam.